tobanka bishan aan ku jirno YouTube-ka ayaa ku dhawaaqay shuruudo cusub. Shuruudahaasi oo noqonaya shuruudihii ugu adkaa abitan iyo markii la aasaasay shirkadda. Assalaamu calaykum, kulanti wanaagsan, isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal. Waxaa idiin rajeynayaa inay galab qurux badan idiin tahay. tobanka bishan aan ku jirno YouTube-ka ayaa waxa uu soo saaray shuruudo cusub oo markaasi qabanaya dadka content creator-ada cusub ah ama dadka markaasi shuruudahani aan kula wadaagi doono aanan weli buuxinin. YouTube-ka tan iyo markii la aasaasay waxaa jiray shuruudo kala duwan oo markaasi soo saarayay si dadka muuqaalada kusoo baahiya ay dhaqaale kaga sameeyaan. Shuruudihii hore ayaan isla fiiri doonaa, shuruudaha dambe ee wax laga bedelay ayagana waan isla fiiri doonaa. Qaybta ugu dambaysan waxaan kugula wadaagi doonaa warka farxadda leh ee markaa adiga daawanaya ku farxad gelinaya haddii aad tahay qof content creator ah amaba aad rabtid in aad kusoo biirtid content creation. Isku soo noqod wanaagsan mar kale saaxiibayaal. YouTube-ka isbedelo badan ayuu sameeyaa, mar kastoo waxaa la update gareeyaa, wax laga bedelaa shuruudaha markaasi dhaqaale samaynta iyo wax badan laga bedelaa waxyaabaha la yiraahdo privacy policy-ga ayaa wax badan laga bedelaa. tobanka bishan aan ku jirno YouTube-ka ayaa ku dhawaaqay shuruudo cusub. Shuruudahaasi oo noqonaya shuruudihii ugu adkaa abitan iyo markii la aasaasay shirkadda. Shuruudihii hore waxay ahaayeen qofka raba inuu content creator noqdo ama dhaqaale uu ka sameeyo. Shuruudaha looga baahnaa inuu soo buuxiyo waxay ahaayeen in 1,000 subscriber ay kusoo xirmaan ama 1,000 qofood ee markaasi bartiis subscribe saaraan. Shuruudda labaad waxay ahayd in 3,000 oo saacadood la daawado muuqaaladiisa oo watch time hoursku ay gaaraan 3,000 oo saacadood in la daawado. Oo isla faceka labaad ee daawashada markaa laga rabay in uu 1,000 kale ku daro oo markaa uu noqdo 4,000 oo saacadood in muuqaaladiisa ay daawadaan 365 maalin oo hal sano gudaheeda inuu shuruuddaasi kusoo buuxiyo. Shuruudda kale waxay ahayd 10 milyan in la daawado muuqaalada shortska loo yaqaano. Marka laga reebo markaa qodobadaasi waxaa jira hal qodob oo aan shuruudaha laga bedelin. oo qodobka koowaad oo ah in 1,000 subscriber aanan waxba laga bedelin oo sidiisii uu ahaanayo 1,000 subscriber. Shuruudaha cusub ee markaasi 10ka bishan ee maalinimada Isniinta ee YouTube-ka ay soo saartay. Haddaba maxay yihiin shuruudaha cusub? Shuruudda koowaad ee lagaaga baahan yahay waa in aad soo buuxisaa watch time hourska. Watch time hourskii 4,000 ee saacadood ahaa ayaa waxaa laga dhigay ama waa laba jibaaray 8,000 oo saacadood oo watch time hours ayaa lagaaga baahan yahay in muuqaaladaada la daawado oo ah shuruudaha ugu adag ee markaasi YouTube-ka uu sameeyey tan iyo markii shirkaddu uu aasaasay. Shuruudda labaad waa shuruudda 10 bilyan ee YouTube shortska ahayd oo markaa laga dhigay 20 milyan in markaa muuqaaladaada ay daawadaan dadka markaa shorts hadduu yahay oo shortska aad ku soo gudbisid. Labadaasi shuruudood oo ah laba shuruud oo shuruudaha ugu adag ee update-ka ah ee YouTube-ka ay ku dhawaaqday waxa ay dhaqan galayaan oo markaasi ay bilaabanayaan 1 Febraayo sanadka 2027. Waxaa ka haray 6 bilood ayaa ka hartay. Warka farxadda leh aan kula wadaagayo waa haddii aad content creator tahay ee aan shuruudahaasi aadan ku buuxinin watch time hourska 4,000 haddii la gaaro bisha Febraayo, shuruudahaasi way ku laba jibaarmayaan oo waxay noqonayaan 8,000 ayaa laga rabaa markaa oo waa shuruudda aadka ugu adag. Laakiin haddii ka hor intaan la gaarin 1 Febraayo sanadka 2027 aad buuxiso shuruudahaasi, markaasi kuma qabanayaan shuruudaha ama shuruucda cusub ee markaa YouTube-ka oo kanaalkaaga waa la monetize gareynayaa oo waxaa lagu ogolaanayaa partner programka ama YPP-ga YouTube partner program si markaasi aad dhaqaale uga samaysid. Marka waxaad haysataa 6 bilood ayaad haysataa
in aad shuruudahaasi aad ku buuxiso. Haddii 6daa bilood aad ku buuxi weysid oo aad haysato 3,900 oo saacadood haddaad haysato, ay kaa dhiman tahay wax ka yar saacadahaasi 4,000 wax ka yar hadday kaa dhiman tahay, waxay ka micno tahay in hadday kugu dhalato Febraayo 1deeda markaasi shuruudahaasi 8,000 ay isku beddelayaan. Marka inaad ku dadaashid isku day oo muuqaalo badan aad soo baahaysid ee aad niishka xataa aad beddeshid si shuruudaasi aad maaragtay u buuxisid. Haddii kale waxaad samayn kartaa in YouTube kale intaad furatid aad markaasi niish ka duwan niishkan oo xiiso badan markaasi aad ku soo bandhigtid si shuruudahaasi aad u buuxisid. Waxaan rajaynayaa in aanan waxba iloobin oo update-ka ugu dambeeyey oo YouTube-ka aan markaasi soo indhandheeyey, soona akhriyey, aan jeclaystay inaan kugula wadaago. Haddii muuqaalkan aad jeclaysatay, fadlan like-tan uga caawi. Annagu laftigeena ayaa la tacaalayna inaan saacadihii aan buuxino, waxayna noo noqonaysaa dhiirigelin inaan update-yada shuruudaha cusub iyo sharciyada cusub ee YouTube-ka uu soo saaray inaan ku dhiirano inaan soo baarno adigana aan kula wadaagno. Haddii aan ugu cusub tahayna waa inoo farxad inaad nagu soo biirtid oo aad ka mid noqotid saaxiibada 3,000 gaaraya ee halkan ku xiran. Tan iyo intaan muuqaal mid kale kulmi doono waxaan kaaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.